رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان وبرنامج aynu ku soo qaadan doono qaar ka mid ah axaadiidta nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. متفق عليه. waxaa laga wariyey Anas ibn Malik in Zayd ibn Thabit uu sheegay in ay la suxurteen nabiga sallallahu alayhi wa sallama kadibna ay u istaageen salaadii. waxaan ku yiri imisa u dhaxaysay suxurta iyo salaada? wuxuu yiri in la eg 50 ama 60. wuxuu ka wadaa aayadood, yacni inta laga akhriyo 50 aayadood ama 60 aayadood waqtiga ah ayaa labadooda u dhaxeeyay. Bukhari iyo Muslim ayaa labaduba soo saaray. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.